dunidan waa goob halgan iyo dagaal maalin walba cusubna waa dagaal cusub haddii ay noqoto dhan ganacsi xiriir naftaada iyo nolosha bulshada dhexdeeda qof walibana waxa uu u dagaalamayaa sidii uu gacanta sare kooli lahaa muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa dhowr qodob oo ay si maalinle ah u sameeyaan dadka bulshada dhexdeeda ka tilmaaman ama guulaystay qodobka koowaad waxay garanayaan their weakness meelaha ay daciifka ka yihiin waxay dadkan maalin walba raadiyaan meelaha laga haysto ama dulduleeladooda kadibna waxa ay iska dhisaan meelahaas laga haysto balse dad badan kama warqabaan mana oga dhibaatada ugu weyn ee haysata inay riyooyinkooda gaaraan u diidaysaa in ay tahay naftooda dadka qaarna waa kuwo qalad walba oo dhaca dusha u saara dadka kale waxayna eedeeyaan waqtiga iyo inaysan fursad helin balse dadkaas waxa ugu weyn ee haysta inay wax xaqiijiyaan u diidaya waa naftooda la soco ma jirto nafta cadow ka weyn ee uu qofka leeyahay kana hortaagan inuu wax xaqiijiyo ma waxaa jiro maanta qof ku dhahaya jiimka iska dhaaf si aad jirkaaga u dhisto maya ma jiro qof ku dhahaya balse maxaa dhacaya markaad bil ama 2 bil wado waad joojinaysaa iyadoo qofna jooji ku dhihin maxaa yeelay nafta ayaan rabin balse haddii aad ka adkaato naftaada waad u guulaysanaysaa noloshan wax walba oo aad gacanta u qaado qodobka labaad white belt mentality waxay horumariyaan noloshooda maalin walba dadka guulaysta waa dad aysan maalinna dhaafin iyaga oo aan noloshooda maalintaas wax cusub ku soo kordhin dadka guulaysta waa kuwa maalin walba dhanka guusha tilaabo u qaada haddii doonto ha yaraato waa dad u nool si ay wax u kororsan lahaayeen daqiiqad kasta ogana faa'iidaysan lahaayeen waqtigooda waxa ay isku diyaariyaan mustaqbalka waxayna isku hubeeyaan aqoon iyo xirfado waxay u xiiso qabaan inay mar walba bartaan wax cusub si ay noloshooda u horumariyaan adna waad samayn kartaa si aad noloshaada u horumariso oo ah muhiimadda muuqaalkan qodobka saddexaad mid ka mid ah dabacadaha ay leeyihiin dadka guulaystay waxa waaye discipline ama consistency qodobka ugu muhiimsan ee wax ama hadaf aad leedahay aad u gaari karto waa joogtaynta shaqadii aad maanta bilowdo aadna joogtayso muddo sanad ah waxaad noqonaysaa qof wax badan ka og waxaas loona daba fariisan karo inaad maalin walba hal saac wax akhriso waxay kuu soo hoynaysaa sanadkii waxaysan kuu soo hoynin 23 saac ee kale ee maalinta ka hartay waa hal saac aad joogtaysay tusaale haddii waqti kooban oo aan kala joogsi lahayn isku dayno inaan ku barano luuqad muddo 6 bilood ah waxaan noqonaynaa dad luuqadaas ku hadli kara ka waran haddii sanad walba aad 2 luuqad barato joogtayntu waa wax dhala guulaha waaweyn ee dadku gaaraan hal lagu daray halna waa wax sameeya tirada bilyanka ah mana jirto faa'iido weyn ee aad ku helayso wax inta aad bilowday oo aad bil ama 2 bil aad waday kadibna aad joojisay ganacsi haddii aad samaynayso sidoo kale waqti ayuu qaataa